مشارح مدحوينه بنتland 2019 أشرع عثمان عبد الله ayaa waxa maanta ololihiisa koowaad ka bilaabay magaalada Baran halkaas oo si diiran loogu soo dhaweeyay oo ay isugu soo baxeen taageerayaasha musharaxa barxadda weyn ee hoteelka Alay oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa uga soo jeediyay musharaxu bulshaweynta ku dhaqan magaalada Baran dhammaan waxaan salaamayaa shacabka reer Baran aad iyo aad baan ugu faraxsanahay soo dhaweynta qiimaha leh oo aad ii soo jeediseen saakay halkan asugu timaadeen nin dhulkayga la joogay waa idin imaan jiray anoo ciidana tuuta qaba maanta waxaan rabaa ciidankii siyaasadda inaan isku darsado insha allah waxaa idinka doonayaa hadduu ilaah yidhaahdo galbeena inay seegtaan oo dowlad wada raadsanno dalkeenna difaacanno nabad ku noolaanno waa ogtihiin cadowga meeshuu noo jiro hadda ma foga wax yar buu noo jiraa waxaan rabnaa sanaadka quruxda badan oo dalxiiska ku fiican oo ugu quruxda badan Puntland inay nabad ahaato oo buurahaas annagoo nabadaysan aan tagno gabagabadiina waxaa loo gudbiyey xarunta saldanadda halkaas oo ku soo dhaweeyay Sultan Siciid Sultan Cabdisalaam Sultan Maxamed Sultan Xasan Ali Jibriil suuqweynaya booqashada iyo safarkeena ugu yimaadeen waa ku mahadsanyihiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi aad baan maanta u dareemayaa miisaanka madaxweynaha Asad iyo waftiga uu hogaaminayo maanta bartida inoogu yahay ragga culus oo siyaasiyiinta iyo cuqaasha waaweyn oo maanta martiga halka inoogu wadaa aad baan u soo dhaweynayaa waxaan leeyahay gobolku waa gobolkiinii dadkuna waa dadkiinii dalkuna waa dadkiinii maantana kursiga uu tartamayo musharaxa madaxweyne Asad aad baan ugu hambalyeynaa waana soo dhaweynaynaa waxaan leenahay Asad soo dhawow madaxweyne aad baan kugu hambalyeynaa adiga cuqaashaada iyo odayaashaada iyo siyaasiyiinta dalkoo dhan odayga maantana taariikhdaadu iyo magacaagu nin ku cusub dalka maaha historygaaga iyo taariikhdaada waa la hayaa iyo magacaagaba ilaa taariikhdaada waanu haynaa marka nin maanta dibad ka yimi oo dalka ku cusub ma tihid nin dalka wax uga qabtay hore haddana waxaan ku rajaynaynaa inaad ku guulaysatid kursiga aad maanta isu soo shaqaysay gobolka magaca Sanaag odayaasha iyo cuqaasha iyo waxgaradkoo dhan aad baan ugu faraxsanahay booqashadaada iyo safarkaaga miisaan kale oo mugga leh oo aad ku hogaaminaysa waftiga culus oo maanta halka nala jooga iyagana aad baan ugu mahadnaqayaa waxaan ahay soo dhawaada wassalaamu calaykum waxay tahay farxad nin dhalinyaro ah oo xaqiiqatan da'aadayda ah waxba ma kala weynine inuu maanta u sharaxan yahay inuu u tartamo xilka madaxtinimada Puntland 2019-2023 waxaana u rajaynaynaa biidnillaahi alkariim dadku boqolkiiba 70 dhalinyaro lagu sheegaaye tan dhalinyaro tahay oo la tilmaami maayo dhalinyarada insha Allah marka guul baan ku rajaynaynaa waa ku ducaynaynaa biidnillaahi alkariim ilaahay subxaanahu wa ta'aala arrinka u guntantay ee aad u socoto waxaa farxad weyn ii ah iyo reerayn maanta inaan soo booqdo qasrigaagii soo jeedinta ahaa saldanadii Cali Shire laa naxariistee aad iyo aad bay farxad ii gelinaysaa waxaan ahay nin jecel taariikhda waxaan ahay nin jecel dhaqanka waxaan nin aad iyo aad uga buuxa saldanadan iyo siday ahaan jirtay oo ku faraxsanahay maanta inaan magaalada Baran ugu soo dhaweysid Sudan maanta waan ku nimid insha Allah waxaan rajaynayaa inaan noo ducayn doontid ilaahay yiraahdo oo sida macnaha noo soo dhaweysay ducada karaameynta waan insha Allah noo wada Maxamed Ahmed Samni TV magaalada Baran